الله الرحمن الرحيم. أولا وأنا بالسلامة هي دجود قضيات السد كذي وأنا دينا هدعينا هي سلو خلو حن سلامة هي لما قبلها ولسه خياطة كل جت كمت برنامج كان هذا بقول السوق من قادية يدوك بابل ده كبر الصومالي الدلكور قدام قانية يعني ساعات وقت السوق إنه بالإسكان وهذا حال الدلكور كصعوبة وحال السلام يا سلامك السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan idinka soo hadlayaa magaalo madaxda xamar oo ah saldhigga ama fadhiga dowladda federaalka ee Soomaaliyeed oo anigu aan xukuumadda federaalka ee wasaaradda ahay dalkii xeerku ku sugan yahay horumar fara lixaad leh ayaa ka socda kana socda midooyinka dala soo dhaafayo anagu aan kala dahaynin horumarkaas wuxuu ka jiraa dhinacyada siyaasadda bulshada amniga iyo dhaqaalaha intaba waa ka jira haddii aan ku bilaabo dhinaca amniga waad ogtihiin xanuunka laga soo maray 24 sanadood oo dagaal sokeeya oo wajiyo badan soo qaatay laga soo bilaabo markay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya 1990 berigii dambana ay jirtay dhibaato kooxo argagixiso oo shabaab la yidhaahdo oo gacanta ku dhigay dalka meelo badan oo koonfurta Soomaaliya iyo gobolada dhexe ee Soomaaliya ka mid ah qasweyn iyo dhibaato weyn ka waday argagix iyo dil iyo qarxin ka waday magaalada madaxda Muqdisho iyo magaalooyinka kaleba waxaan la galnay dagaal aanu runtii ummadda Soomaaliyeed uga saarayno dadkaas dadka argagixisada isla markaana aan ku xasilinayno nabadgelyada iyo nolosha qaybaha Soomaaliyeed markaas oo ka sugnaayeen waxaa la socotaan in laba marxaladood oo dagaal oo ay ka kaashadaan ciidamada qalabka sida Soomaaliya gaar ahaan xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada amisan gacanta nafsiinaya in lagaga qabsaday magaalooyin aada u badan hadda waxaan filayaa 80% dhulkii ay haysteen shabaab gacantooda ayaa laga saaray waxaa u dambeeyey magaalada Baraawe iyo magaalooyin kale yaryar oo ahaa Baraawe ay ahayd xaruntii ama magaalo madaxdii nimankaas ay fadhiyeen waxaan leeyahay gobolada shabeellada dhexe waxaa ku haray aadan yabaal ayaa gacantooda ku haray galguduudna waxaa ku haray adigu loo magaalaa ku hartay waxa ay hadda ku sugan yihiin waxaa weeyaan gobolada jubbada dhexe qaybo ka mid ah jubbada hoose iyo qaybo ka mid ah gobolka Gedo iyo magaalada Dinsoor oo gobolka Bay ay ka joogaan qorshuhuna inuu sii socdo weeye ilaa laga codurtirayo dhammaan laga qoreynayo degmooyinka iyo gobolada Soomaaliya oo dhan بإذن الله تعالى وحنا كل جوين هذا الرياضة الفرنسية اللي علينا كاسل يوم هذا الله يبنى واحد دكتورين سبق على من هول بلاد اللي علي في كلمة في جان كودا أداب الكودا مالجين كودا يقال لنا في وهذا قرأت أي تكاسلين وحقوق الانفراد aad ugu qantay oo aad ay u yartahay xogta aan haynana ay in badan oo kamid ah ay yihiin kuwa aad u yarsan marka la soo qaado ilaa iyo bishii laba bilood hadda la soo dhaafay bishii hadda la soo dhaafay gaar ahaan ilaa in ka badan 500 oo dagaalyahanada asfaarka badaya dowladda soo diiday oo hadda gacanta ku haynaa waan rajaynaynaa kuwa badan inay soo diidaan marka aan hoggaanka fiirino waxaa xidgoob meesha ka baxay hoggaankii ugu sarreeyey ninkii madaxda u ahaa
kooxdan iyo qaar kaloo madax ahaa ayaa meesha ka baxay marka halkaa hogaankoodi waa uu ka lumo dhanka magaalo madaxda walaalayaal haddii aanu eegno magaalo madaxdu aada iyo aad bay uga ammaan badan tahay sidii hore dhacdooyinka ama dilka ama isqarxintu aad bay hoos ugu dhaqaan maalin walbana waxaa la qabtaa oo la fashaliyaa isku dayo iyo dhagaxo markaasi wataan muwaadiniinta soomaaliyeed ee magaalo madaxda joogta waxay dareemayaan runtii amni aada uga badan intii hore habeen iyo maalin way socdaan mas-uuliyiintu way shaqo galaan cabsidu waa soo yaraan laakiin weli khatartu waa jirtaa oo uma fadhino waa iska ilaalinaynaa waa ka jiranahay ciidamadu habeen iyo maalin howlgal bay ku jiraan ay ku ilaalinayaan amniga waana la dareemay runtii horumarkaas xagga amniga laga sameeyey marka dhinaca amniga waxaan xujo ka qabnaa in dalku isu furfurdo kiisi badan waa isu furfurantay hadda magaalada markaad xamar ka baxdo ilaa iyo aad tagto waqooyiga soomaaliya wadada waa furan tahay markaad marto jowhar jallaqsi buulaburke galbeeyne waa dhulku waa isu furan yahay dhinaca koonfurtana waxaan rajeynaynaa dhawaan inay soo furmaan markii howlgalka magaalada jilid iyo dhulkaas la dhamaystiro waan rajeynayna dhawaan in la dhamaystiro dhinaca siyaasadda waxaad la socotaan soomaaliya waxay isku waafaqday mar hore in la sameeyo soomaali federaal ah oo midaysan oo adag in dalkeenu dishanka uu leeyahay ama higsiga uu leeyahay waxaa weeyaan waa soomaalidu ay midaysan tahay isla markaana ay uqaybsan tahay maamullo ama dowlad goboleedeeda uqaybsan tahay intii haddaynu kalehaynay waxaa runtii howl badan laga qabtay dhismaha maamulada gobolada federaalka noqonaya waxaad la socotaan jubba howl fiican baa laga qabtay haddana waa maamul jira oo u guuri doona haddii alla idmo inuu noqdo dowlad goboleed hadda waa kumeelgaar processkii ayaa socda uu u guuri lahaa dowlad goboleed sidoo kale waxaa dhamaystir ku dhow oo aada maqli doontaan guryaha soo socda gobolada koonfur galbeed gobolada dhexe howsheedana waa ay socotaa galguduud iyo midug puntland holadeeda jirtay marka wadahadal wanaagsanna waxaa uu noo socdaa oo beriga somalilan oo hadii aan rajeynayna iyaguna inay qaranimada soomaaliya iyo midnimada soomaaliya ay kamid noqon doonaan mustaqbalka markii wadahadalkaas la isku afratay laakiin wadahadalkaa socda marka dhinaca siyaasadda horumar badan baa laga sameynaya dadkii ku howlanaan jiray dagaalka iyo isriyoodka iyo muranka hadda waxaad moodaa soomaaliya inay u dhaqaaqday in ay dhisaan maamulada oo guurka laga soo dhiso oo dadkoo dhan markaa ay ka qayb galaan kalada ay ka qayb galaan waxaas waa waxa aanu u naqaano political inclusivity ama dadka soomaalida oo dhan ay kaladooda ka qayb galaan oo ay noqoto in dadka gobolada jooga ay kalada wax ku leeyihiin oo kalada ay leeyihiin magaalo madaxdana dowladda federaalka ay noqoto dowlad hawsheedu ay tahay inay la shaqayso dowladda goboleedyada marka nidaamkaas federaalka waa socdaa waxaa barbar socda iyadoo mar dhow la dhisi doono guddigii xuduudaha iyo federaalka la dhisi doono oo markaas qaabka ay u shaqeynayaan guddigaas marka waxaa ka horeeya dhismaha guddigaas iyada sharciyadii la xiriiray la ansan doono waxaa kale oo qabanqaabada ku jirta hawsheeduna socotaa in dastuurka guddi loo eego 2015 aynu dugsanayno in afkadugoona loo qaado dastuurkaas oo markaa uu noqdo dastuur dhamaystiran oo dadka soomaaliyeed taladiisa laga qaybgeliyey oo ay isku raaceen waxaa socda dimuqraadiyeyntii dalka
deegaan waxaan golaha baarlamaanka geyn doonaa sharciyadii doorashooyinka iyo guddiga doorashooyinka. waxaan kala geyn doonaa sharcigii axzaabta si soomaalidu ay uga guurto qabiilka ayna ugu guurto inay axzaab noqdaan, doortaan, loo sukageliyo qof walba soomaali ah inuu kala soomaaliya ka qayb gala isagoo dooranaya madaxda isaga uu doonayo. waxaasoo dhan xagga dowlad dhisaha iyo goboleedyada, dastuurka, federaaleynta iyo doorashooyinka waxay noo wadaan in 2016 aan u dareerno doorashooyin aan u dareerno gaarto. hawshaas aad bay u socotaa. waa hawsha aynu u naqaano figsiga 2016 taasoo ah in soomaaliya ay noqoto dowlad dimuqraadi ah oo dadkeedu madaxdooda ay doortaan si buuxda ay u doortaan. marka taas waa arrimaha siyaasadda. waxaa socda howlo yani lagu dhisaayo adeegii bulshada iyo waxbarashada iyo xagga caafimaadka iyo xaggii adeegyada kale. haddaan soo qaadano xagga waxbarashada, xukuumaddu waxa ay gacanta ku haysaa barnaamijka weyn oo la yidhaahdo barnaamijka aadiga dugsiyada oo runtii guul weyn laga gaaray, kaasoo higsigiisu yahay ilaa 1 milyan oo carruurta soomaaliyeeda gobolada dalka iyo degmooyinka dhammaantood in loo sahlo oo ay awood u helaan si kasta ha noqdo standardkooda ama dhaqaalahooda faqiir iyo mid dhexe intaba in loo sahlo oo awood u helaan inay iskuulka aadaan si aanay ugu dhicin unug soomaaliyeed inay iskuul la-aan noqdo. wadadkiina waa burbureen iskuuladii iyo macalimiintii iyo waxyaalihii waxbarashadoodan waa baabeen. marka barnaamijkaas wuxuu dhisahayaa macalimiintii, wuxuu maalgelinayaa iskuuladii. marxalad fiican baan la marahayaa runtii ilaa iyo 200 oo iskuul oo barnaamijkaas ka mid ah ayaa hadda kaabagal ah marka guddiyadeedan u afiiriyo waana u sii soconaya. caafimaadka hawl weyn baa laga hayaa. barnaamijyo dhowr ah oo caafimaadka socday waxaa ugu muhiimsan barnaamijka caafimaadka asaasiga oo ayaan dhexayn daafaqay oo dhallaanka iyo carruurta dhimashadooda in lagu xadido. waxay dadkii soomaaliya dhimashada hooyo marxadaha ugu hooseeya adduunka dowladda ugu hooseysa inay tahay oo ugu badan dhimashada haweenka markay umulayaan iyo dhallaanka dhimashadooda markii yar yihiin ama dhashaan ama ilaa 5 sanadood ay ka gaarayaan cudurrada bilaada ay ku dhacaan. marka hawshaas maxsuud ayaa loo wadaa. waxaan rajeynaynaa in mar dhow aynu soo saari doono record in soomaaliya aysan ahayn dadka ugu liita ama ugu hooseeya adduunka xagga dhimashada dhallaanka iyo carruurta. waxaana ka horgelaya takhaatiir soomaaliyeed iyo kalkaaliyaal soomaaliyeed iyo dad caafimaadka u tababaran. waxaa kaloo socda barnaamijka nafaqeynta. wadadkiina carruur badan waxay u dhimataa nafaqadare u dhimataa. marka barnaamijyada caafimaadka aynu wadno waxaa kamid ah in carruurta meelaha weliba dhibaatooyinka ka jiraan iyo xeryaha barakacayaasha iyo in loo helo nafaqeyn carruurta si uga badbaadiyo nafaqadare inay wataan. marka xagga cudurrada iyo xagga nafaqadaba waa wada socda. adeegaas waa socdaa runtii. waxaana dhismahaya awoodii wasaaradda caafimaadka iyo hay-aadka kale ee ku xidhiidha caafimaadka iyo waxbarashada iyo awoodooda ayaa aada u dhismaysa. tababaro macalimiin baa la qabtaa, tababaro takhaatiir baa la qabtaa. howlo badan ayaa halkaa ka socda. sidoo kale xukuumaddu runtii waxay waxweyn ka qabanaysaa xagga infrastructure gaar ahaan jidadka iyo waxyaabaha noocaas ah. hadaad hadda timaadaan xamar oo adeegtaan jidadkii iyo nalalkii aad bay wax kaga bedeleen. waxaad arkaysaa jidad maarta